inta aadna tegin qurbaha oo adiga aadna dhoofin sidee maaragtay aad ka aaminsaneed nolosha qurbaha maxaad ka aaminsaneyd maxaa is leedahay waa sababta ugu weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed uga hayaamayaan dalkooda hooyo oo maaragtay ay u sii galayaan dalalka shisheeye dadka Soomaaliyeed markii ay dhoofeen oo ay galeen maaragtay dalalka shisheeye ama deriska ha ahaadaano ama dalalka fogfog ee qabowaha ka jiro ha ahaadaano sidee ula qabsadeen maxayse kala kulmeen oo caqabada ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America qaab noocee ah ayay isugu xiran yihiin ma u malaynaysaa dadka maaragtay ku nool North America iyo guud ahaan qurbaha ee dalkoodii kaga hayaamay colaadii inay ku soo noqon doonaan waddankoodii kaalin noocee ah ayay ku leeyihiin fidinta dacwada maadaama ay tageen dadka ugu badan ee degan ay yihiin Christian ama dad diin haysan maxaad kula talin lahayd dadka hadda socdaalka ay boorsadu xiran tahay ee raba inay u tahriibaan America assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada saaxiibayaal bahda inagu xiran oo halkani waa Dhaymaale haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar haddaad hore noola joogteen haddii hawsha waa taqaanayo like iyo share saaxiibada la wadaag comment halka hoose faalada inagula wadaag waa barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono nolosha dadka Soomaaliyeed anagoo isku dhigi doono nolosha qurbaha iyo tan dalka waxaan barnaamijka gudihiisa ku qaadaa dhigi doona oo maaragtay ku faahfaahin doona safarada laga maro maaragtay in la gaaro dalalka maaragtay shisheeye iyo waxa lagala kulmay yaana ku fogaan oo barnaamijka maaragtay si guud gal ee waxa barnaamijkan igu heliyo oo marti ku ah saaxiibkay Cabdiraxiim Maxamed Daahir oo kamid ah qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga America haddana maaragtay safar ku jooga dalkiisa hooyo Cabdiraxiim ayaan kala sheekaysan doona inagoo googoosan doona hadda maaragtay isku dhiibi doona barnaamijka Cabdiraxiim marka hore ku soo dhawow channelka Dhaymaale ما شاء الله بسم الله الحمد لله وبنا نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ابانا انتي ادي محسن تهي هذا kaga mahadcelina inaad igu casuumtid channelkan Dhaymaale waan ku dhawahay aad u mahadsan tahay ma sha Allah Cabdiraxiim hadaan sii guud galno barnaamijka inta aan hore u galno barnaamijka bal maaragtay hadii lagu dhaaf Cabdiraxiim waa kuma adoo soo koobaya maaragtay qof ahaantaadii ya nala wadaag insha Allah okay kulay Cabdiraxiim magacaygu wuxuu waa Cabdiraxiim Maxamed Daahir ku dhashtay wadanka Saudi Arabia waxbarashadiisa hoose dhexe sare ku soo qaatay magaalada Baydhabo iskuulka Model School sanadii 2010 fursad u helay inuu qurbaha aado waxbarashadiisa heerka jaamacadeed ku qaatay wadanka Mareykanka haddana ku nool wadanka Mareykanka beeskiis meesha uu yahay insha Allah inaasan ku soo koobi lahaa ما شاء الله هذا سي قد قلنا عبد الحين سؤال شو رئيسي برنامج كواحد كل هذا أنت أدنى تجين قربها وأديك أدنى دوفين سيدي معرفة كأمين سنة نمشي قربها حد كأمين سنة كل قف كستو صومالي وحو قربها كأمين سنة بان كأمين سنة قربها إنها تهي ميل في عن ونبض له حسلون وشقل له وحبرشو في عن له وحيابا سرنتي أن كأمين سنة أنت أنا قربها أنتجين مركع تكتيسه mala kulantay wixii aad aaminsaneyd maxaa iska bedelay aragtidii aad ka lahayd nolosha qurbaha runtii intii aan ka aaminsanaa waxaan is leeyahay in badan waan ka arkay ama waa diyaar way ku ahaayeen meel kasta adduunyada aad ka tagtin runtii challenges ama caqabado waa iska jirtaa meel oo aanan jirin caqabad ha ahaato dhanka nolosha iyo dhan kasta waxaan dhihi karnaa waa jannada laakiin adduunka meel kasta aad ka joogtid always way iska jiraan caqabado iyo challenge laakiin overall wixii qurbaha aan ka filanayay waxaan dhihi karaa waan ku arkay Cabdiraxiim maxaa is leedahay waa sababta ugu weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed uga hayaamayaan dalkooda hooyo oo maaragtay ay u sii galayaan dalalka shisheeye abana runtii waa su'aal aad muhiim ah saan la socono wadankeena Soomaaliya sanadii 92 markii dawladda dhexe ay burburtay wadankan wuxuu soo maray dagaalo sokeeye taasoo keentay in dad badan oo Soomaali ah wadanka ay ka cararaan maadaama meesha amni iyo nabad aysan jirin uu hayaamay wadamo fara badan sida wadamada deriska sida Ethiopia iyo Kenya xarooyinka qaxootiga meesha galay qofkii awoodana dibadaha Europe America Asia marka xilligaas sababta ugu weyneed oo dadka wadanka ay ugu tagaan waxay ahayd amni la'aan meel hadduu dagaal uu ka socdo amni uusan jirin dee laguma noolaan karo hadda waxaan isdhihi karnaa wax isbedel baa jiro hadda amni baa jiro dawlad baa jirto inkastoo dawladda meesha la rabay weli aysan gaarsiisnayn laakiin weli waxaan dhihi karaa waxaa jirto caqabad dhanka shaqada furastii shaqada iyo waxbarashadii heerka sare marka hadda sanadahan dambe
sababaha ay dhalinyarada u rabaan inay wadanka uga tagaan ama aysan uga tageen waxaan dhihi karaa fursadihii shaqada oo aad u yar iyo noloshii standardkeeda dhanka waxbarashada oo weli caqabad ay ka jiraan maadaama wadanka weli dowlad fadhida uusan lahayn inahaasan dhihi karaa hadda wadanka dadka ay sababahaas ay ugu hayaamayaan hadda. Okay. Dadka Soomaaliyeed markii ay dhoofeen oo ay galeen maaragtay dalalka shisheeye ama deriska ha ahaadaano ama dalalka fogfog ee qabowaha ka jiro ha ahaadaan sidee ula qabsadeen maxayse kala kulmeen oo caqabad ah? runtii markaad fiirisid ummadeena Soomaaliyeed waxyaabaha positive-ka ay leeyihiin waxaa lagu tilmaamaa ummad ku fiican waxyaabaha loo yaqaan integrationka isdhexgalka runtii meel kasta ay tagaan bulshooyinka ay u tagaan runtii way la qabsadaan bulshooyinka waxbay kusoo kordhiyaan haddaad fiirisid Afrikadan Nairobi haddii islii ganacsiyada ay ka fureen siday yani ummadaha ay u dhexgaleen integrationkooda Dubai haddaad fiirisid South Africa qurbahana markay tageen runtii ummadihii ay u tageen waxaa la dhihi karaa si fiican bay yani u dhexgaleen waxyaabay kusoo kordhiyeen ii sheegaday ha ahaato dhanka ganacsiga iyo wax kasta marka caqabad runtii waa iska jiraan caqabada ugu weyn aan dhihi karo waxa waaye dhanka ilmaha qurbaha haddii runta laga sheego waxa waaye waa meel nabad taasho wadamo horumaray waa sida wadamada Yurub iyo wadamada North America waxbarasho leh furas shaqo leh laakiin caqabada ugu waaweyn aan dhihi karo oo ummadda Soomaaliyeed markay aadeen Yurub iyo Latin America meelahaas ilmaha waxbarashadooda xagga diinta ii sheegay markaad ilma aad ku dhasho ama ilma aad ku korinaysid beeya islaamiya runtii waxaad fursad u helaysaa ilmahaaga inaad malcamad quraan aad geysid quraanka aad bartid diin islaamka aad bartid ayagoo ku nool beeya islaamiya taasi waxay fududaynaysaa in diintooda ay bartaan laakiin marka qurbaha la joogo ilmaha badanaa waxaa la geeyaa public school ilmo badan oo ii sheegay qoomiyad fara badan ay ku dhex jiraan marka fursad uma helayaan inay bartaan diintooda iyo quraanka iyo dhaqankooda suubanaa inay bartaan marka taas caqabad u keenaysa waalidiinta marka caqabada ugu weyn oo aan dhihi karo maanta Soomaalida ay waajahayaan waxa waa ilmaha korintooda iyo in la baro diintooda iyo dhaqankooda suuban adrixi marka aan soo koobno dadkii Soomaaliyeed ee tagay maaragtay dalka America fursad noocee ah ayay ka heleen xaggaas wayna ka heleen dalkooda markii ay joogeen se aan sheegay fursadda ay ka heleen xagga waaye nabad iyo xasilooni tan kale furas oo ah inay yani shaqo ay helaan ay shaqeystaan si ay u horumariyaan noloshooda si ay u caawiyaan familkooda waxay ka heleen waxbarasho tayo sare leh waxyaabahan waxaan ku tilmaami karaa waxyaabaha aasaasiyaadka ah nolosha qofka bini'aadamka wuxuu u baahan yahay nabad iyo xasilooni kadib wuxuu u baahan yahay waxbarasho wuxuu u baahan yahay shaqo sidoo uu aasaaso caa'ilad ama familkiisa sidoo isheeg u takargareeyo marka waxaan leeyahay fursadahaasi way ka heleen wadanka Mareykanka iyo meelaha kale ay tageen sida Yurubta adrixi waa mahadsan tahay haddaan ku sii socono barnaamijkeena waa maxay halista ugu weyn ee taala qurbaha su-aashaasan hadday aan kusoo daro waxa waaye halisaha ugu weyn ama caqabada ugu waaweyn jaalida Soomaaliyeed ee ku nool qurba ay wajahayaan waxaan badanaa aan ku tilmaami karaa dhanka ilmaha qofka hadduu nabad u haysto waxbarasho u haysto uu shaqaysan karo maasha Allah waxyaabo badan oo wadaagsan laakiin ilmaha meesha aad ku dhashay barbaarintooda waan ka soo hadlay mid kale aan ku daraa waxay tahay ilmaha in loo ilaaliyo identigooda ilmaha wadankaasi ku dhashay waxay aaminsan yihiin inay yihiin wadanka ay ku dhashay مثلا inuu Mareykan yahay hadduu Mareykan ku dhashay wuxuu aaminsan inuu Mareykan yahay inuusan Soomaali ahayn marka waalidiinta xagga waxay waqti juhdi ay galinayaan in canugan horta ay ka dhaadhiciyaan inuu yahay Soomaali laakiin ilmaha wadanka Mareykanka ku dhashay waxay la barbaareen ilmahaas Mareykanka ay la barbaareen bay'adaas ay ku barbaareen waxay aaminsan inuu Mareykan yahay inuusan Soomaali ahayn marka waalidiinta waxay caqabad kala kulmayaan canugaas inay baraan luqadiisa hooyo ee Soomaaliga inay baraan dhaqankii Soomaaliga ay baraan inay yani ay u ilaaliyaan identity ama sinjigiisa Soomaaliyeed inay u ilaaliyaan marka dad su'aalaha oo dadka qurbo joogta isweydiinaa waxay tahay ilmihii meeshan aan ku dhalnay baaba hadda waxayna leeyihiin ani Soomaali mihi ani Amerikaan ahay ani European ahay ka waran beri ka maalin haddii tii rabi ay imaato aan dhinto canugi meeshan uu ku dhali doono muxuu noqon doonaa marka runtii waxyaabaha su'aalaha hadda la isweydiinayo waaye waalidiinta qaar waxay sameeyeen in ilmihii ay yani xilliyada fasaxa iskuulaadka fasaxa laga yahay
inay ilmihii ay u soo wadaan wadankii Soomaaliya si bal ilmihii loo baro afkoodii Soomaali loo baro dhaqankii Soomaaliya u bartaan bal ay u ogaadaan yani in dadkooda ay bartaan wadankoodii ay bartaan marka saasay sameynaa marka waxyaaba isweydiina waxay tahay beri haddaan ani aan dhinto tii rabbi ay imaato wiilka u dhali doono generationka u dhali doono wuxuu noqon doonaa waxyaabaha kale meeshaan ku qornay waxa waaye dee qowmiyadaha sida carabta iyo qowmiyada wadamada galbeedka lixdameeyadii kontumeeyadii wadamadaas gale hadda completely identity-gooda iloobay wuxuu ku leeyahay ani Mareykan ahay laakiin awoogaygu wuxuu ahaan jiray Algeria awoogaygu wuxuu ka soo jeeday Ciraaq hadda asi waxaa la John Stephen la dhahaa tattoo u saaran diin islaamka uu ka baxay waa wuxuu noqday completely wuxuu noqday nin western reer galbeed u noqday marka Soomaalida hadda waxaa soo wajahday cabsi ah bal ilmahooda jiilka ay sii dhali doonaan in wadadaas ay maraan runtii taas caqabad weyn aan dhihi karaa waxaan saddexiin anagoo barnaamijka Libertanka kaga jirna su'aashan xigta waxay leedahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America qaab noocee ah ay isugu xiran yihiin ma gobolka hadda ay u degan yihiin ay maaragtay isugu xiran yihiin mise gobolkii hore ee dalka maaragtay markii ay dalka Soomaaliya deganaayeen ay ka soo jeedeen ay u abaabulan yihiin mise qabiil ahaan ay isugu xiran yihiin qaab noocee ah ay isugu xiran yihiin jaaliyadaha ku dhaqan North America